daawadayaal Idris Sheekh Ismaaciil waxa uu ka mid yahay dadka lacagaha deymaha ka qaatay hay'adda adeegga lacagaha yaryar ee deegaanka Soomaalida isla markaasina abuuray goobtan ganacsi oo aan hadda ku sugannahay. Idris waxaan ka wareysan doonaa bal waxaad iga warantaa sida aad ku bilowday ganacsiga. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Kullay anigu 3 sano ka hor ayaan bilaabay ganacsiga ugu horeeyay. 2 xabo oo harqaana ayaan meeshan soo dhigtay. halkan ma ahayn waliba meherad kale ahayd meherad yar bay ahayd 150 kun bay isiiyeen hay'adaha lacagaha yar yar ee microfinance Somali microfinance 150 kii waxaan ku qaatay 1 sano ayaan ku qaatay waxaan ku celiyay 7 bilood yaan lacagtii iskaga celiyay markaan lacagtii celiyay haddana mar labaad waxay isiiyeen 250 kun 250 kii kun 2 sano ku qaatay waxaan ku celiyay 6 bilood baan ku celiyay dib ugu celiyay alxamdulillah markii saddexaad waxa la isiiyay 600 kun baa la isiiyay 600 kun hadda meeshan aad arkaysaan waxa yaalay 2 harqaan bas ah oo xataa kiskaagaan 2 nin kaliya ka shaqeynaysa waxa hadda maanta yaala waad aragteen kullay gudaha waxa ku jira waa ilaa 10 harqaan meelaha say dhan yihiin marka lacagtii 9 bilood baan ku celiyay 600 kun ahayd tii aad baan uga faa'iidnay 11 gobol branchiyeen ku leh waxaan ku iibiyaa dharkan aan si jilma ah yaan u dhiiba yaan mataqaana meel goobo aan dhiga ayaa jira waan qaybiyaa dharkan waa dharka ciyaal iskuulka 8aad wixii ka hooseeya ayaa mataqaanaayay marka ilaa 12aad ayaan tolaa annagu marka jilmo baan ku iibinay tafaariq kuma iibino branchiyada aan geeyo laftoodu jilmay ku iibiyaan dadka tafaariq la ayaa ka sii gata alxamdulillah shaqadii ay noo abuureen hay'adda lacagaha yaryar aad baan uga faa'iidnay runtii waxyaabaha aad qaban jirtay markii hore intaanad halkan iman oo aanad goobtan abuurin isla markaana aad iyaga lacagta ka qaadan maxay ahayd ma bahaynin ba shaqaba maanan haynin xirfadan waan aqaanay horta laakiin dhibaatada ay hor taagneed waxay ahayd haddaadan xabadii harqaanka aadan haynin ma noqon karto marka mataqaanaayay suurtagal kuma noqon karto waxaan ahaa nin magaalada uu iska dhex wareega qaybta shaxaadkan ka mid ahaa qaybta shaxaatanta ee mataqaanaay magaalada war hebel uu ii dhiibta yaan ku fiicnaa marka intaa ka dambeysay alxamdulillah waxa la yiri hay'adaha mataqaana shirkadda ayaan la xiriiray nin baa iiga sheekeeyay aan saaxiibnahay oo yiri mataqaana inuu saasaa jirta anna marka guri aan lahaabaa jiray gurigii baa marka ku codsaday harqaamadii ugu horeeyay iyaga ii iibiyay markii lacagtii ugu horeysay ka qaatay meeshii oo banaan aan kireeyay harqaamadii ay ii iibiyeen waxa dhacday marka in aan hore u sii talaabsado alxamdulillah maanta iyaga uma baahniba kaanka aad ku bilowday waad iska wada celis dhammaan waan iska wada celiyay wax la igu leeyahay hadda maanta ma jiro wixii hore marka runtii waxa hadda anigu aan isleeyahay aad noqotid mataqaanaa aniga hadda inaan wax sii bixiyo yaa hadda ku tala jira shaqada qabanaysa maadaama ay badan tahay dad shaqaale ah oo kula shaqeeya jira oo aad aad shaqaalaysiisay 12 ruux baa ila shaqeysa 12 hadda halkan waxa taala 7 taala 4 meel gaar ay taala oo guri baa lagu shaqeeyaa shaqadanadu waa shaqo anagu aan abuuranay waa tan weeye waqtiga la iibinayo intaasoo ruux baa ka sii daba faa'iida dadka jecel inay shaqadan oo kala bilaabaan iyaguna oo hay'adda lacag ama meel kale ka qaata maxaad u soo jeedin lahayd waxaan u soo jeedin lahaa horta nin kasta waxa aad taqaano yaan dhihi lahaa waxa taqaano baad ka faa'iidi kartaa wax haddaadan aqoonoodan xirfadiisii lahayn dhib buu kugu noqonayaa ma inaad ka faa'iida lagama yaabo marka nin kasta horta bal marka ugu horeyso waxa aad taqaanay xirfadaadu tahay hadda harqaanka haddaadan aqoonin aad tiraahdo harqaan baan ka shaqeyn ma noqonayso waxa aad taqaano horta marka ugu horeysa ayaan kula talin lahaa dadka in ay mataqaanaa wax yaqaanaan xirfadda ay yaqaanaan haddayna aqoonin horta xirfadda inay bartaan marka ugu horeysa Idris Sheekh Ismaaciil oo isagu kamid ah dadka ku guuleystay lacagaha deymaha ay ka qaateen hay'adda adeegga lacagaha yaryar ee deegaanka Soomaalida oo isagu ku sugan Jigjiga isla markaana hadle goobtan ganacsi ee aan ku sugannahay